waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhacay muddooyinkii dambe abaaro 8 subaxnimo ee Sabtidii maanta halkan oo ah isgoyska X Control Afgoye waxaa ka dhacay qarax ismidaamina goobta oo aad mashquul u ahayd ayaa mar qor isbedeshay lama watirada rasmiga ee dadka halka ku dhintay balse saraakiisha ayaa sheegay in khasaaruhu uu aad u badan yahay ciidamadii ku sugnaa xaruntan la weeraray canshuuraha lagu qaado dad shacab ah iyo laba qof oo u dhashay dalka Turkiga ayaa kamid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee halkan ka dhacay gaadiid badan ayaa sidoo kale halkan ku gubtay waxyeelo kala duwan ayana gaartay dadkii la socday gawaaridan oo ay ku jireen arday waxaana la aaminsan yahay in dhismooyin burburay wali dad ay ku hoos jiraan goob joogay ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka sheekeeyay waxa uu arkay markii qarxaasi uu dhacay waa cuqubadaas ayaa dhacday waxaas aad arkaysaan ummadana waxa weeye la isma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhamaaday nimanka ardada jaamiciintan waa ku jira halkaan ku dhamaa meeshaan way ku baaba'een indhaada maxay aqabteen markuu qarax dhacay waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saas u bidaayay qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahoodii halkaan waxa ku dhintay madaxdii meeshaan xukuntay alyoom iyo ninka la yiraahdo Saylac iyo meeshaan ku jira hoos hadda ku jira waa rag baabacay oo booliska gaariga qarxay waan arkay wakaalka halka waa laga qaaday waxaa la sheegay inay Turkiga wax ku noqdeen maxaa ogtaa adiga ya Turkiga wax ku noqdeen saraakiil Turkiga Turkiga halkaas uu galay waa meeshaas meeshuu galay Turkigu laba nin bay ahaayeen gaariga qarxay noociisu ma sheegi karo waxaas ma yir ma aan lahayn anoo dhan xitaa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda isbiya ku soo maray habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyay markaan soo nimidna meeshaan ardadii markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyay miyirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii meeshaan cuquba ka dhacday aabo waa kaab wax la yaab laha dhacay dhimashada aragtay meeqa waxa weeye dadku 70 kama yara dhaawacan waa dadka dhintay dhaawac wuxuu ahaa 4 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filisha oo goobtaasi gaaray kadib markii weerarkaasi uu dhacay ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka hadlay khasaarihii ka dhashay weerarkaasi ismidaaminta ahaa mashada tirar rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goob joogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda halkan oo ah isgoyska X Control Afgoye waxaa ka dhacay qarax weyn isla markaana geystay saameyn aad weyn saraakiisha amnigu waxay sheegeen in khasaaraha halkan ka dhashay qaraxaasi ilaa imika aan lahayn tirokoob sax ah dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay maamulka gobolka Banaadir oo goobtan soo gaaran waxa uu sheegay in imika ay hayaan ururinta xogta rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay qaraxii halkan ka dhacay asaatee marka la eego khasaaraha qaraxan uu geystay waxa uu yahay mid baaxad weyn marka la eego tirada dhimashada tirada dhaawaca oo ilaa imika dadku ay sheegayaan in xaddigu ay dhaafto aan la tiri karin waxaa sidoo kale dadka halkan ku dhinta ku jira dad u dhashay dalka Turkiga oo ka shaqeynayay wadada dhismaha ku socda ee Afgoye dadkaasi ayaa la sheegay inay gaarayaan 2 qof oo Turki ah sidoo kamid ah dadkii halkan ku geeriyooday goobtan la weeraray waxay ku taallaa isgoyskan X Control Afgoye waxaana lagu qaadaa canshuuraha isla markaana saaka waa berigii hore ayaa gaari walxa qarax laga soo buuxiyay halkan lagu dhuftay khasaarihii ugu badnaa ayna halkan ka dhashay inta la og yahay